السلام عليكم صاحبيال سو دوادا dhammaantiina sawada dhantihiin kuna soo dhawaada youtube-kiina walaalaha media inaad ku mahadsantihiin dhammaan daawashada muuqaalkayga daawanaysid waa anigoo hana diray gaashaan oo idin leh mar kale isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh in haddaba aan guda galnaa mawduuceena caawa mise maanta waxa ay ku tahay in mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay qaabka garhka iyo shakhsiyaadka uu ka turjumo qaababka garhka aad ay u farbadan yihiin balse dhammaan qaababka garhka uu kala baxo iyo shakhsiyaadka uu ka turjumo ayaan caawo title-ka videogeena uu ku saabsan yahay waan u guda gali doonaa daawade bal kaliya inala socdo balse inta aan muuqaalku u galin waxaan kaliya wax ka taawanaynaa qaababka garhka uu kala baxo 6 qaabood ay sheegan saynisyahannada qaabka koowaad waxa uu yahay gar fiiqan oo dheer gar yari gar afar gees oo isleeg leh gar hore u soo baxsan iyo gar wareegsan iyo kan ugu dambeeyo gar dib u baxsan saahada u jeedid daawada dhammaan gararka aan soo sheegnay haba yaraatay hal mid ayuu garkaagu noqon doonaa daawada balse caawa qodobka aad ayuu xasaasi u leeyahay aan soo qaadanay garka fiiqan ee dheer qofka garka fiiqan leh waxaa la sheegaa inuu yahay qof madax adag yacni macangig ah waa fahmi kartiin afila haddii aad aragto daawado ama aad horay u aragta mise haddaadan aala joogto qof gar fiiqan leh ogow inaad la macaamilayso ama aad la dhaqmuusid qof madax adag yacni macangig tusaale dhow haddii aad qofkan madaxa adag oo macaangaga aad howl mise wax yar aad u dirto oo aad telefoonkiisa mise laynkiisa wacdo asiga oo howl kale mise waxyaabo kale sameysanayo means waxaa lama huraan in uu qofkaasi mobilka gebigiisaba uu ka ajiibin uu ka qabanin kuguna jawaabin ilaa uu howshii uu qabanayay oo ka dhameeya deetana mobilka suuragal ayay noqonay inuu ka qabto qofkaasi maalinta dhan hadduu qofkaasi hawshii ku jiro aad wacdo lagama yaabo inuu mobilkaasi ajiibo daawade ilaa uu hawshii ka boganayo marka halku muxuu yahay halka anaa ku haya kaliya iskiirso qofka waxaa rabtaa inaad macaamishid qaabka kula macaamil lahayd aniga hanada ayaan ku haya caabo isku day qofkaasi inaad wax cadaadis ah ku sameynin wax walba uu jecel yahay wax walba uu hamigiisa yahay wax walba uu tusaale qofkaasi uu ku shaqeeyaa ka soo qaad wuxuu haminayo wuxuu jecel yahay waxyaabaha jooskiisa inaad u sameysid aad soo jeedisid aad kasban kartid aad maskaxdiisa aanan kartid isku day daawade sababtoo ah waxaa saas ku dhahooyaa qofkaasi haddaa cadaadisid natiijo fiican meesha ma kaaga soo baxaysa ayaan isdhihi karaa daawade qodobka labaad qofka garka afar geeska leh qofkan waxaa badanaa ay sheegaan saynisyahanada mise dadka waxyaabaha falanqeeyo qof loolamo oo tartan weyn kula jiro dadka asiga lacinka ah mase dadka ka sareeyo qofkani waa qof xariif marka uu jabo dib ayuu u soo kabsadaa meeshiisana ayuu kasii bilaabaa qofkani teeda kale waxaa cajiib maba quustaba ilaa uu wuxuu rabay uu gacanta kusoo dhiga maahane teeda kale qofkani aan ka hilmaamin waa qof ficil badan aad ayuu u ficil badan yahay daawade qofka garka afar geeska noocan oo kaleeta u jeedid leh waxa uu qiimeeyaa tusaale business oo kale markii la sameynayo shay ala shaygu soo iibsado shaygan muxuu faa'iido dhaliyay muxuu khasaare keenay sanadkan qof waxa waaye gebigiisaba xisaab ku furan oo xisaabtama dadka waxyaabo intay iska soo gataan oo iska iibiyo deetana ka fikirin shaygan normal miya low miya high miya isku barbar dhigo dadka aan ahayn maaha ninkan waa dadka waxyaabaha qiimeeyo maxaa faa'iiday maxaa khasaartay labada dhinac uu ka eega halka muxuu yahay qofkan iskula janqaadaan mise aad isu fahantaan halka anaa ku haya hanad isdeji kaliya sida halkii hore oo kaleeta halkani anaa ku haya daawade kaliya fikradiisa tixgelinsi oo qiimay hadaladiisa wuxuu ku soo bandhigto hamigiisa wax walba tigsaar kaliya
bowsadin wax walba uu ku soo bandhigto qofkan kaliya waxa lagaaga baahan yahay daawade inaad tiig saartid waad fahantaa malayna garka yari sida hadda aad u jeedid qofkani wuxuu xiriir la leeyahay qofkii hadda aan ka soo tagnay qodobkiisa oo ahay garka fiiqan garkan yar xiriir ayuu la leeyahay garka fiiqan waad fahantaa malayna daawade qofkani badana waxa lagu macnayaa waxyaabaha yar khaladaadka yar waxyaaba easy ee markii laga sameeyo inuusan isceli karin oo isxakameey karin durbaba hawada sare galay yani xanaaqa yiminis sidoo kale qofkani wuxuu aad iyo aad maynis u yahay aan isdhihi karaa aniga ahaanteeda qofka maalin walbo dhacdooyin ayaa soo mara tusaale waxyaabo oo iska easy ah ha noqoto dhanka businesska ha noqoto dhanka filmmaker ahaan anything wax walbo oo la sameeyo maalmaha noloshaada ku saabsan waxyaabo caqabadooyin yar ku soo wajahayaan ha noqoto dad yar oo iska dhaliilayaan dad yar oo ku dhahan sheegan saam ku fiicnay saam maxaa u yeelweysay oo fikradaada maahan fikrad kale inay ku soo jeediyaan ku qasbayaan asiga waxyaabahaas yar sida dad kale waxba uu soo qaadin asiga dadka kale maahan waxyaabaha yar xitaa wax ayuu ka soo qaadaa yani qodobkaas liiska ayuu ku darsadaa qodobo iska easy ah arkay qofkan oo liiska ku darsanayo means dadka kale ee uu dugan yahay qofkan afahmi kartaa malayna daawade ka taxajir oo ka tigtoono qofka garka yari leh hadaad aliisho mis wax aad ka sheegto gabi ahaanbo uu ku nici doona qofkaasi la socdo daawade halka maxuu yahay anaa ku hayo sida labada qodob oo hore noogu horeeyeen halka kugu siiyay kana halkiisu waa iska easy kaliya ilaali dareenkiisa si xad dhaaf ah qodobka kale garka wareegsani sida hadda ku muuqato ma ahan qofkani qof dagaal badan mana ahan qofkani qof xun badanaan wuxuu jecel yahay qofkani dadka inuu ku dhex jiro wuxuu kaloo jecel yahay isku imaatinka bulshada sida goobaha lagu cabeeyo emailada koofiga laga sameeyo sidoo kale qofkani marka uu bulshada ku dhex jiro wuxuu ka geystaa kaalin weyn wehel ahaan laga dareemaa qofkan inuu qofka kale garab taagan yahay minis kaliya fikrad fiican ayaa muuqaalka dhexdiisa kaaga siinaya tusaale qof hadaad rabtid haddii aad data mise xog durbaba waxaba yaraatee wax fikrad mise khibrad aad u baahan tahay inaad qof kale ka koobiyeysid minis aad ka qaadatid u tag waxaan kula talinayaa qof gari wareegsan daawade qofkaasi waxa uu ku fahmi karaa ama ku caabi karaa sida easy wax walbo oo afkiisa ka soo baxo hore ay maskaxdaada ka gali doonaan daawade dadka kale aad ayuu ugu dugan yahay qodobadii hore aan soo qaadanayn qofkan waxaan filayaa inuu aad iyo aad ugu dugan yahay daawade qodobka kale garka hore u soo fishsan sida hadda u jeedid daawade qofkani waxa lagu macneeyaa qofka markuu shay bilaabo mise maanta business mise wax walbo anything qofka markuu wax bilaabo mise wax uu sameeyo maanta ilaa qofkii wuxuu sameyn lahaa oo kamera dhaliyo mahane qofkan hadduu kufo waa uu sii kacaa wuuna kufaa wuu sii kacaa isla meeshii uu rajinayay ilaa uu ka gaarayo mahane qofkan maahan qof dheeleel kuna jab daawade sidoo kale qofkani waxa uu ku fiican yahay hadduu title dejiyo mise qodob asiga uu qorshaysan yahay kamaba haraba gabigiisa qodobkaas ilaa uu kamera dhaliyo amazing mashallah qofkani badana waxa lagu macneeyaa qof shakhsiyad hogaamiye leh garka gadgadaal u baxsan saahad u jeedid daawade qofkani badana waxa lagu macneeyaa dad qof aanan bulshaabi aheenin sa dareemi kartid daawade waa qof iska aamusan bulshada aan soo dhaxgelin mar walbana qofkani waa qof mar walba fakiro daawade sidoo kale qofkani waxa aad iyo aad u adag daawade wax markuu bilaabo sida qofka haday aan ka soo heleyno wuxuu meeshan uu kaga dugan yahay qofkan aan dareemi karna daawade shay markuu bilaabo qofkani aqabadooyin yar haduu kala kulmo xitaa shaygaas gabi ahaanba faraha ayuu iskaga qaadaa daawade qofkani waxa uu hawshan dhameeyaa mise hawshu bilaab markuu dhameynayo waxa waaye hool aad iyo aad muhiim u ah markuu qabanayo aqabadooyin kala soo istaagan xitaa qofkani
shaygaasi wuxuu isku dayaa ama wuxuu ahaayo inuu si nadiif ah u dhameeyo. Ha yeeshee waxyaabo iska easy ah markuu sameynayo sidoo qofka adaayo kaleeto qodob walba wax walba business wax walba oo asigu ku saabsan markuu qabanayo qofka adaayan ka soo leyn wuxuu waayay qof kamera dhaliyo hamigiisa. laakiin qofkan wuxuu u dugan yahay waxyaabo muhiim ma ahane waxyaabo iska normalka ah gabi ahaanbo qofkani hadduu aqabadooyin yar kala kulmo gabigeedaba faraha ayuu ka qaadaa daawaday. qodobka kale qofka aan garhkiisa horena u baxsanaynin dibna u baxsanaynin normaliga daawaday qofkani waxa uu u dhaxeeyaa labadii qodob hadda aan soo sheegaynay oo ugu dambeeyay garhgadaal u baxsan iyo garh hore u baxsan. kani garhkiisa wuu toosan yahay labadaba wuu u dhaxeeyaa dhexdhexaad ay qofka garhkani leh shayga uu bilaabo mise qorshaha uu leeyahay ahamigiisa leh marka uu bilaabo dhaxda kaga tago qofkani. ha yeeshee qofkani labada qof wuxuu ugu fiican yahay aan ka soo heleynin garhka hore u baxsan iyo kan dib u baxsan wuxuu kaga dugan yahay qofkani sidoo kale kuma sii dhignaado shayga uu bilaabo. ha yeeshee waxa uu yaqaanaa mise yaqiinaa xilliga rasmiga ah oo shayga uu bilaabay oo laga tago. cajiib daawaday mawduuceen caaba kaliya intaan ayuuna uga egyahay daawaday saa u jeedid caabo mise maanta waxa ay kuu tahay mawduuceena intaan ayaan kusoo koobaynaa in si kasta aad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkayga daawanaysid. waa anigoo hana diri gaashaan idin leh caafimaadkaaga ka faa'iideyso kadibna khayr badan. bye bye.